dadka caba sigaarka ayaa lagula taliyay in gabi ahaan bay iska joojiyaan halkay yaray lahaayeen isticmaalkiisa. Haddaba daawada si aad ula socotid warbixinada kale aadka u xiisaha badan, fadlan like inoo saar sina share garay warbixintan. Aynu ku horeyno sida ku cilmi baaris ay sameysay jariirada caafimaadka ee BMJ ayaa tilmaamtay in haddii qofku uu yareeyo inta uu cabo maalintii sigaar aanay hoos u dhigi doonin khatarta in qofku uu soo wajaho wadna xanuunka. cilmi baarista sameeyay ayaa muujinaysa in qofka caba maalintii hal xabo oo sigaar boqolkiiba 50 uu halis ugu jiro cudurka wadna xanuunka. boqolkiiba 30 ayaa sidoo kale waxa halis ugu jira qofkii maalintii caba xabad sigaar in madax uga furma dhiigu marka loo barbar dhigo qofka aan weligii isticmaalin. khubarada ayaa sidoo kale waxa ay daa ka rogeen in arrintaasi ay muujinayso in sinaba uusan sigaarku ugu wanaagsaneyn qofka bini'aadamka marka loo eego cudurrada halista uu sababi karo sigaarka sida kansarka sanbabada iyo wadna xanuunka qofka bini'aadamka ku dhaca. waxaa sidoo kale khubaradu ay sheegeen in qofka dhimatirada inta mir uu cabo maalintii uu u dhow yahay inuu joojiyo markii loo barbar dhigo qofka caba sigaarka aadka u badan. 141 mujallad oo lagu daabacay bogga jariirada caafimaadka ee BMJ ayaa muujinaysa in haddii qofku maalintii cabo 20 mir oo sigaar ay sababi karto 7 cudur oo wadnaha balse haddii qofku uu dhimo tirada maalintii uu isticmaalay sigaarka uu weli qofku ugu jiro halis 3 xanuun oo wadnaha ku dhaca.